golaha shacabka ayaa akhrinta labaad maanta marsiiyey heshiiska ka mid noqoshada hay-adda damaanadda maalgashiga darafyada badan. aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ayaa akhrinta koowaad marsiiyey wax ka beddelka sharciga warbaahinta, waxaana golaha hortagay wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka. diyaarad sidee gargaar oo dowladda qatar ay ugu talagashay gurmadka fatahaadaha ayaa maanta soo gaartay magaalada muqdisho. wararka dibaddana daawadayaal waxaa ka mid ah dowladda Nigeria ayaa kordhisay waqtiga xidhnaanshiyaha xuduudeeda dhulka oo loo xanibay sababa ganacsi. waa hagaag daawadayaal, intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa warka habeenimo SNTV. markana u diyaar garooba warkii oo dhammaystiran. golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya ayaa maanta akhrinta labaad marsiiyey heshiiska ka mid noqoshada hay-adda damaanadda maalgashiga darafyada badan. waryaheena Ibraahim Guud Isxaaq ayaana warkan nooga diyaariyey. gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo shir gudoominayay kulanka guud ee golaha shacabka ayaa waxa uu horeyn sheegay in xukuumadda iyo gudiyada golaha shacabka looga baahan yahay inay soo dedejiyaan shuruucda ay hayaan si uu golahu waajibkiisa uga guto. sidoo kale xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta akhrinta labaad marsiiyey heshiiska ka mid noqoshada hay-adda damaanadda maalgashiga darafyada badan oo ay soo gudbisay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee dalka, waxaana golaha u faahfaahiyey gudoomiyaha guddiga ganacsiga, dhaqaalaha, warshadaha iyo maalgashiga ee golaha shacabka xildhibaan Maxamuud Cabdiraxmaan Beene. multilateral investmentigan ama waxaan la dhaho hay-adda damaanadda maalgashiga darafyada badan waa heshiis ama mandate-ka caawinaya dadka maalgashiga ah oo wadamada foreign direct investment ama waxyaabahan maalgashiga la dhaho si ay wadamada ugu caawiyaan. tusaale ahaan wadamada raba inay ka faa'iidaystaan insurance-gan amaba caymiskan. waxaana xildhibaanadu fikrado kala duwan ka dhiibtay. qaarkood ay sheegeen in haddii sharcigan la ansixiyo faa'iidooyin badan uu dalka u leeyahay. hay-adda darafyada fara badan, darafyada laamanka ayaa badanaaba loo wada yaqaanaa. af soomaaligii oo mubaaxa ahaa ee la wada yaqiini waa dhinacyada badan ayaa kaga habboonayd in darafyo la yidhaahdo. marka ereygaasi kolley aniga waxaan ka qabaa wax ka bedelan. sharcigan wuxuu caymis siinayaa hay-ado oo shakhsi noqon kara, hay-ado oo bangiye noqon kara, hay-ado oo maxaa la yiraahdaa international maxaa la yiraahdaa companiye oo ajnabi oo dalkan danayn kara inay maalgeliyaan ayuu damaanad siinaya. Soomaaliya in la maalgashado annaga waa noo fiican tahay, aaday noogu fiican tahay. waxaan nahay halka shacab oo 60 sano dalkooda la og yahay inuu berri iyo badba batrool ku jira ee ka faa'iideysan waay. waxaan nahay halka shacab ee 30 sano dagaal ugu jiray siday u survive garay lahaayeen. waxaan nahay halka shacab oo suuqan ay ka taagan yihiin boqolaal caruur oo dhalinyaro ah ka bilaabatay 15 jir ilaa ku gay 40 jir oo baagamundo oo saaka inta soo kacay meel oo aaday meel oo ka shaqaystay waxa uu suubiyana. marka dalkii oo maanta aan gacan ku hayna haddana qolo kale taan iraado waa u saxiixin madana gudoomiye ha laga fiirsado waxyaalaha aan qabanayno mustaqbalkanaga waxa ku dhisan oo aan jiilka soo socda iyo kuwa hadda jooga u qabanayno waa inaan ku dhisnaa sharciyad aan qaanuun wax anaga dhawaardeynaya waa inaan helnaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaah. ugu dambeyn gudoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo kulanka soo xiray ayaa sheegay in muhiim ay tahay in la helo sharci yaqaano maadaama uu heshiiskan uu yahay mid caalami ah. heshiiska caalami uu yahay aan u maamulaya sharci caalami ah meeshaan marka xildhibaanada aad u saxan yihiin in la helo dad sharci yaqaano ah. heshiiskan markaan galno maamulkiisu wuxuu noqonaa sharci caalami ah in lagu maamulo. Ibraahim Gulle Isxaaq, raadiyaha iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed, xarunta golaha shacabka, Muqdisho. aqalka sare ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya ayaa iyaguna maanta waxa ay akhrinta koowaad marsiiyeen wax ka beddelka sharciga warbaahinta,
waxaana golaha hortagay wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ah oo golaha ka hor akhriyay sharcigaasi. wariyahayaga maxamed nuur shariifka ayaa ka waramaya. kalfadhiga lixaad kulankiisa tobnaad ajendaha waxa uu ahaa akhrinta koowaad hindis sharciyeedka wax ka beddelka xeerka warbaahinta iyo dhegaysiga labaad warbixinta guddiga gaarka ee arrimaha fatahaadaha. kulanka waxaa shir guddoominaya guddoomiyaha golaha aqalka sare baarlamaanka federaalk soomaaliya mudane cabdi xaashi cabdulaahi, wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir maareey ayaa golaha ka hor akhriyey hindis sharciyeedka wax ka beddelka xeerka warbaahinta waxa uuna sharxay muhiimadda xeerkan uu leeyahay. qodobka 18 oo shuruudaha ay ku qornaayeen iyo aqoonta iyo imtixaan laga qaadayo marka la siinayo kaarka wariyanimada isagana waxaa laga bedelay. qodobka 5 oo ganaaxyada hadduu dembi galo wariyuhu cid ku xadgudbo hay-ad ku xadgudbo shakhsi ku xadgudbo lacagtii ku qornayd oo badnayd waxbaa laga qoray. qaabka ay liisanada u qaataan qodobka 34 meelihii cabashadu ka timid ahayd sidoo kale qodobka 14 qodobka 33 way idin qoran tahay warqadda ay idin ku qoran tahay xagga dambe ee buugga markaad dhamaysana waxay idin ku qoran shax golaha shacabku idin ku sheegayo qodobku siduu markii hore ahaa sida ay ka dhigeen iyo waxay uga dhigeen riisanka u cuskadeen xagga dambe idin ku lafaa. mudane cabdi xaashi cabdulaahi guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in sharcigan ay la wareegaan guddiga u qaabilsan arrimaha warbaahinta si ay uga soo shaqeeyaan. ajendaha labaad ee kulanka ayaa la guda galay waxaana warbixin laga dhageystay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya mawliid xuseen guhaad oo guddiga gurmadka golaha aqalka sare guddoomiyu ah waxa uuna sheegay in ay sameeyeen xog ururin deegaanada ay saameeyeen fatahaadaha waxauna senatarada u soo jeediyey inay bixiyaan min $1,000 qasnada golaha aqalka sare laga bixiyo $20,000. meelaha kale wixii laga heli karay waa yeelkeeda laakiin ka aqal ahaan tala soo jeedintaas labada qodob ee in senator walba si kasta iyo meel kasta ha ka raadiyo uu ku tabaruxo lacagtaas $1,000 in la aqbalo. sidoo kale qasnada golaha in laga bixiyo lacagta $20,000. howlaha hore dheeriga guddiga wuxuu ballan qaadayaa inuu sii daba joogo hay-adihii uu la xiriiray sida wasaaradda gaadiidka masiibooyinka iyo guddiga ganacsatada Soomaaliyeed iyo prime ministerka mudane guddoomiye mudanayaal waxaan ballan qaadaynaa inaanu sii xoojino. senatarada ayaa sheegay in la dedejiyo wax u qabadka dadka fatahaadaha ay saameeyeen oo markaasi noloshooda iyo hoygoodaba ay saameyn ku yeesheen biyaha. guddoomiyaha golaha aqalka sare baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa senatarada ugu baaqay lacagaha gurmadka inay markaasi si dhaqso u dhiibaan si maatida loogu gargaaro. waxa weeye go'aanka waynu qaadanay waxa qof waliba maskaxdiisa ha geliyo arrintaas sidii aan degdeg ugu heli lahayn lagama maarmaan weeye inta horta heli kartaa hadda maanta macnaha guddigaa loo dhiibaya markaas waxa weeye arrintaa waa sidaynu u go'aansanay si degdegana kolkaas qof waliba ha isu xilqaamo oo ha loo keeno. waxaan filayaa waa maanta waa isniin talaada arbaca ugu dambeyn qof waliba inuu isxilqaamo inuu keeno. maxamed nuur maxamed shariifka warbaahinta qaranka muqdisho. sidee gargaar oo dowladda qatar ay ugu talagashay inay uga qayb qaadato gurmadka fatahaadaha ayaa maanta soo gaartay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho. waryaheena cabdulqaadir cali axmed ayaa warkan nooga diyaariyey. diyaaraddan ayaa siday 42 tan oo gargaar ah oo loogu talagalay in lagu caawiyo dadkii ay saameeyeen fatahaadaha webiyada dalka
haba ugu badnaatay magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan waxaana si toos ah uga soo duushay magaalada dooxa waana gargaarkii ugu horreeyay ee dowladda qatar keento dalka xubno ka tirsan golaha wasiirada dowladda Soomaaliya ayaa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee Muqdisho markii ay soo caga dhigtay waxaana la socday wafdi uu hogaaminayo madaxa sanduuqa horumarinta dowladda qatar Khalifa Jaasim Al-Kuwari waxaana sheegay in ay sii wadayaan gargaarka loo fidinayo dadkii ay saameeyeen fatahaadaha من دولة قطر للجمهورية الصومالية هذه الدفعة الأولى من المساعدات اليوم 42 طن من المواد الإغاثية بالإضافة إلى الدفعات القادمة إن شاء الله جاري تجهيزها بالإضافة إلى ما تقوم به المنظمات القطرية والتحركات للشراء من السوق المحلي دولة قطر تقف إلى جانب الأخوة الأشقاء في الصومال في هذه الأزمة إن شاء الله وإن شاء الله الأمل أن الأوضاع تتحسن عما قريب wasiirka gargaarka xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamza Saciid Xamza ahna gudoomiyaha guddiga qaran ee fatahaadaha ayaa uga mahadceliyay dowladda Qatar doorka ay ka qaadanayso gargaarka loo fidinayo dadka Soomaaliyeed oo ay saameeyeen fatahaadaha deeq bini'aadanimo oo dafcada ugu horeysay 42 tan aan ugu talagalnay meelaha oo fatahaada ka dhaceen beledweyne bardaale iyo baardheer taasna waxaan u mahadcelinaynaa ee dawladda Qatar oo markasta garab taagan walaalan waxyaabo kamid ah wili noolum soo gubnay laakiin liiska waa haynaa kule waxa ugu badan agaba maartay waxyaabo baahida aan qabno sida ha noqoto marakanaaco teendooyin daawooyin raashin iyo agab kale oo deeqan soo gaarto waxyaabo badan ay iska bedeleen meesha inkastoo baahida wili ay si badan tahay beledweyne meesha waxa wal maareena waa 150,000 qoys oo meelood ka soo barakaceen waxaan rajaynayaa in waxyaabo ay taraan waxaan rajaynayaa maalin inay wax sii isbedelaan wax sii hagaagaan dowladda qatar waxay kamid tahay dalalka saaxiibada dhowlaha Soomaaliya waxaana sidoo kale kamid tahay dalalka ugu dhaqaalaha badan wadamada Carabta hase yeeshee gurmadka ay u baahan yihiin dadkii ay saameeyeen fatahaadaha webiyada dalka waa wili fariiq kama qodna oo micnaheedu yahay kuma filna Cabdiqaadir Shacab warbaahinta qaranka garoonka aadan Cabdulle magaalada Muqdisho dhinaca kale dowladda Jabuuti ayaa mar kale waxa ay diyaarad gargaar wada u soo dirtay Soomaaliya si uga qayb qaadato gurmadka fatahaadaha marka la wariyay Cabdulqaadir Cali ayaa inoo haya waa diyaaradii labaad ee sida gargaar oo dowladda aan walaalahanahay ee Jabuuti ay u soo dirtay Soomaaliya waxaana maanta ay keentay teendhooyin si ay hooy uga sameystaan dadkii ka barakacay guryahooda oo ay saameeyeen fatahaadaha webiyada safiirka dowladda Jabuuti ee Soomaaliya Aadan Xasan Aadan oo mar kale ku wareejiyay guddiga qaran ee fatahaadaha ayaa sidoo kale wadamada saaxiibada dhowlaha Soomaaliya uga baaqay in ay doorkooda ka qaataan sidii loo caawin lahaa isla markaana loo sameeyo bixin lahaa dadkii ay saameeyeen fatahaadaha webiyada waxa sharaf nooca mar kale inaan maaraytaan madaarka Muqdisho ku qaabilno diyaaradii labaad ka timid Jabuuti oo si maaraytaan gurmadkii dowladda Jabuuti ee shacabka Jabuuti ay ku ballan qaadeen diyaaradana sidii diyaaradii hore waxay sidaa qalab gurmad laakiin markan waa teendooyin kaliya oo teendooyin kala waaweyn waa 15 tan waxa ay sido laakiin waa teendooyin kaliya ayay tan sidaa waana diyaaradii labaad ay soo gaadha waxaan mar kale rajaynaynaa maaraytaan walaalaha Soomaaliyeed dawladaan iyo shacab ahaanba maaraytaan guulayaan u rajaynaynaa hawsha ay ku jiraan ee wadaniga gurmadkaana Ilaahay inuu u fududeeyo wasiirka boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya injineer Cabdi Canshuur Xasan ayaa isna sidoo kale ku baaqay in loo gargaaro dadkii fatahaadaha ay ku dhufteen waxyaabaha aad markasta aad Soomaaliya aad la garab taagantiin waa wax mudnaanta koowaad markas u leh waa wax baahidooda aad taqaanaan waa idin kaga mahadcelinaynaa waxaan u rajaynaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee dhibaatada fatahaada ee ku habsatay Ilaahay inuu ka dulqaado ummadda Soomaaliyeedna waxaan ugu hambaleynaynaa sida wanaagsan ee isku gurmatay ee isu taakuleynay ayaan maartay ugu hambaleynaynaa meel kastana inay ka soo gurmadaan oo maartay walaalood u soo gurmadaan waxaan rabaa in ku celin baaqayni ahaa in beesha caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in dadka ku dhibaataysan fatahaada webiga maartay gurmad lala soo gaaro wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka Xamza Saciid Xamza ahna gudoomiyaha guddiga qaran ee fatahaadaha ayaa sidoo kale uga mahadceliyay dowladda Jabuuti sida ay uga qayb qaadanayso dhibaatooyinka ay sababeen fatahaadaha ka dhacay dalka dowladda iyo shacabka
iyo madaxweynaha ismaaciil cumar geelle aan ku mahad celinayno taageerada inuu muujiyeen waqtiga dhibka jiro waddanka Soomaaliya maanta waxaan guddoonnay diyaaraddii labaad oo siday teendooyinkaas waa teendooyin aad wax u tari doono shacabka reer beledweyne waxaan raadinaynay ismaaciil cumar geelle mahad gaar ayaan rabaa inaan u jeediyo oo mar kasta uu taagan yahay horumarka waddanka Soomaaliya waad mahadsan yahay cabdiqaadir shacab warbaahinta qaranka muqdisho guddiga qaran ee gurmadka fatahaadaha ayaa ka warbixiyay xaaladaha dadkii ku barakacay fatahaadaha iyo daadadka roobka ka dhashay haddaba wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk ee Soomaaliya oo xubinka guddiga gurmadka ee qaran ayaa sheegay in dowladda ay diyaarisay qorshayaal isxiga oo arrintaasi looga qabanayo dowladdu markaa qorshe ayay dejisay 4 weji leh oo loogu gurmanaya dadkaas wejiga koowaad wuxuu ahaa in dadka la samata bixiyo oo meelaha fatahaadu ugu galeen waqti horena digniin la sii siiyo markii biyaha la arko inaanay ku jiri karinna laga bixiyo magaalada wejiga labaad ee ay dawladdu samaysay waxay ahayd in dadka markaa la quudiyo maadaama ay guryahoodii iyo wixii ay ku tiirsanaayeen nololaha ay ka baabeen in la quudiyo wejiga saddexaad ee qorshaha dawladda waxa weeye in marka ay taa dhammaato biyuhu magaalooyinku hagaagaan in lagu celiyo deegaankoodii oo lagala qayb qaato inay noloshoodii caadiga ah ku noqdaan dadweynaha qaxay ee guryahooda ka baxay qodobka afraadna waxa weeye sidii dawladda Soomaaliya ugu diyaar garoobi lahayd meelaha had iyo jeer fatahaadu ka dhacaan oo beledweyne ka mid tahay sidii aanay mar labaad ama mar saddexaad afraad uga dhici lahayn ee la keeno qorshe weyn oo magaalada looga badbaadinayo biyaha soo gala waxaanuna leenahay wajiyadaas aan sheegay kii koowaad baa ina ka dhamaaday kii labaad baan ku jirnaa labadii ugu waaweynaana waynoo dhiman yihiin oo ugu qarashka badnaa marka dadweynaha Soomaaliyeed ganacsatada Soomaaliyeed iyo dawladaha aan saaxiibka nahay intaba waxaan leenahay hawshii waa dhiman tahay gargaarkii iyo gurmashadiina wali way socotaa inaan laga daalin sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa dawladaha aan saaxiibka nahay ay ugu horeyso dawladda aynu walaalaha Djibouti oo aad la socotaan inay iyaduna 600 kun lacag ah oo dollar bixisay isla markaana gargaar ay diyaarada ku wadaa uu socdo oo wali socdo waxaan u mahad celinaynaa dawladda Qatar oo iyaduna maanta diyaarad weyn oo sida gargaar ay timid hore Qatar charity ay beledweyne uga qaybinaysay raashin aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan u mahad celinaynaa dawladda Turki oo iyaduna hay'adaheeda gargaarka iyo dawladduba ku mashquulsan yihiin waxna geeyeen inay dadka Soomaaliyeed caawiyaan sidoo kale wasiir Maareey ayaa waxa uu xusay in magaalada beledweyne laga sameeyo xarun gurmad oo xiriirisa howlaha iyo isku dubaridka gurmadka dadka ay saameeyeen fatahaadaha webiga Shabeelle dawladda Soomaaliya oo gurmadka ku jirta waxay kowdii bishii tobnaad 2019 beledweyne u dirtay wafdi wasiiraa waxaanay ka samaysay xarun gurmad degdega oo ilaa hadda ka dhisan beledweyne oo wasiiradaasi rangareeyaan ama ay wadaan hawl maalmeedkeeda ayaa loo diray halkana waxaa ka furan xarun kale oo gargaar oo 24 saac shaqeysa oo ra'iisul wasaaraha jeeriyo guddigii loo magacaabayna ay fadhiyaan ujeedka kormeerkan ayaa ahaa mid dawladda Soomaaliya oo gurmadka ku jirta waxay kowdii bishii tobnaad 2019 beledweyne u dirtay wafdi wasiiraa waxaanay ka samaysay xarun gurmad degdega oo ilaa hadda ka dhisan beledweyne oo wasiiradaasi rangareeyaan ama ay wadaan hawl maalmeedkeeda ayaa loo diray halkana waxaa ka furan xarun kale oo gargaar oo 24 saac shaqeysa oo ra'iisul wasaaraha jeeriyo guddigii loo magacaabayna ay fadhiyaan sidaad la socotaan labadii bishii tobnaad madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa tegey magaalada beledweyne si ugu kuurgalo culayska jira maadaama ay tahay meesha ugu dhibka ugu badan gaaray maalintii isniinta ee labadii bisha dawladda Soomaaliya waxay dirtay diyaarado markii ugu horeysay ee uu furmay airportka oo dhowr maalmood xidhnaa oo gargaar geeyay
welina diyaaradahaasi way socdaan berrina diyaarado badan baa tegi doona oo sida caawimada aan idhi maanta ayay diyaarad weyn oo 42 tan sida oo gargaar kala duwan ah ayaa la qaadayaa berri oo la geynayaa gobollada dalka beledweyne oo kaliya maaha beledweyne diyaaradaha ugu badan baa u baxaya laakiin sidoo kale waxaa la tegaya magaalada baydhabo oo laga quudiyo berdaale iyo magaalada baardheer ayaa berri la tegaya dadka ku barakacay fatahaadaha ayaa loo sameynayaa quudin iyo daweyn joogto ah waxaana sidaas shaaciyay wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka oo ka tirsan guddiga gurmadka qaran waxaa la siiyaa biyo nadiif ah oo maalin kasta waxaa la dhaamiyaa ku dhowaad 80 booyadood 100 booyadood oo dadka biyo nadiif ah siiya si caafimaadkooda loo daryeelo waxaa la siiyaa taandhooyin inkastoo aan weli lala wada gaarin waxaa la siiyaa cunto nafaqo leh ayaa la siiyaa adeeg caafimaad ayaa la siiyaa daawooyin fuuqbaxa iyo waxyaalaha iskaga ilaalinayaan marka ay dabeecad tii ay ku noolaayeen ka duwan baa la siiyaa iyo mareykaneecooyin ayaa la siiyaa markaas waxaanu ku guulaysanay dawlad ahaan sidii aan dhici jirin muddadii dawlad la'aanta inaan hal qof oo gaajo u dhintay ama raad u dhintay ama dayac u dhintay aanu ilaa hadda jirin marka laga reebo dadkii iyagoo gargaar bixinaya ay ugu badnayd dhimashadii noogu badnayd waxay ahayd wakiilo dawladda labada heer ka socda oo bixinaya gargaar oo dad soo badbaadiyay in dadkii ay soo badbaadiyeen iyo iyagiiba ay doontii la gadoontay dhimashada noogu badnayd halkaas ay ka dhacday dhimashada kale way xadidnayd ama dad awalba duruufo caafimaad ku jiray laakiin qof kastoo dhintay waanu qornay dalka oo dhan ilaa 16 qof ayaanu samaynaa oo inta ugu badani doontaa ku wasiirka wasaaradda howlaha guud ee xukuumadda federaalk ee Soomaaliya ayaa maanta waxa uu kormeer qiimeyn ah ku tagay dhismaha wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye wariyaha Maa'ido Muxudiin Dhiblaaw ayaa ka waramaysa ujeedka kormeerkan ayaa ahaa mid wasiirka wasaaradda howlaha guud mudane Cabdi Aadan Hooso oo ugu kuurgalayay halka uu marayo dhismaha wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye wasiirka ayaa warbixin la xiriirta dhismaha wadadan halka ay marayso iyo waxa dhiman ka dhageystay madaxda shirkadda wadada dhismaha waxa uuna bogaadiyay sida ay u socoto shaqada dhismaha oo haatan maraysa meel fiican asaga oo bogaadiyay dardargelinta dhismaha wadadaasi kambarigii dhisi lahaa oo Turkiga ahaa ayaa nagu cazumay inaan la fiirino xaaladda wadada halkay marayso waana fiican tahay runtii shaqada muddada la bilaabay iyo hadda meel ay wax marayaan waa ilaahay baa loogu xamdinayaa laakiin shaqo wanaagsan baa ka socota February insha Allah way soo gabagaboobi doontaa hadduu ilaahay idmo sida u jeedaan runtii wax weyn baa laga qabanayaa markay tan dhamaatana waxaa bilaabmi doona wadadii kale oo dhinaca shabeellaha dhexe iyaduna aadaysa ayaa bilaaban doonta dhanka kale waxa ay booqdeen wasiirka iyo wafdigiisa xarunta shirkadda fulinayso dhismaha ayagoo soo kormeeray shaybaarka hubinta tayada dhismaha iyo qalabka shirkaddu ay ugu tala gashay in lagu dhiso wadooyinka shirkaddan laga leeyahay dalka Turkiga ayaa ku guuleystay dhismaha wadooyinka isku xira Muqdisho iyo Afgooye Muqdisho iyo Jowhar waxaana marka ay dhamaato dhismaha wadadan iyana bilaaban doona dhismaha wadada isku xirta Muqdisho iyo Jowhar Maa'ido Muxudiin Dhiblaaw warbaahinta qaranka Muqdisho ciidamo ka tirsan booliska ilaalada xeebaha Soomaaliyeed ayaa dalka Djibouti uga qayb galay tartan iyo tababar u dhaxeeya ciidamo ka kala socda ilaa 9 wadan wariyaheena Mikail ayaana warka nooga soo diray Djibouti tababarkan ay ka qayb galeen taliska ciidamada ilaalada xeebaha booliska Jamhuuriyadda Soomaaliya oo isugu jiray tababar iyo tartan ayaa waxa uu ahaa mid ay ku mudoobeen wadamada bariga Afrika wadamada galbeedka badweynta Hindiya Yurub iyo waqooyiga Ameerika tababarkan oo lagu qabtay xarunta ciidamada ilaalada xeebaha ee dalkani Jamhuuriyadda Djibouti ayaa waxa ka soo qayb galay ilaa 9 wadan oo ka kala socda qaybaha kala duwan ee wadamadaasi waxaana goobtaasi ciidamada
ilaalada xeebaha booliska jamhuuriyadda Soomaaliya ay ku soo bandhigeen howlgallo cajiib ah oo si weyn ay ula dhaceen guud ahaan qaybihii kala duwanaa ee ka soo qayb galay tartankaasi tababarka ahaa. wadamada ka qayb qaadanaya waxaa ka mid ahaa Djibouti, Faransiiska, Kenya, Saudi Arabia, Masar, Madagascar iyo Mareykanka. waxaana inta badan diiradda lagu saaraya sida ciidamada howlgallada degdega ah ay uga qayb qaadan karaan iyo weliba doorka wanaagsan ee looga baahan yahay in ciidamadaasi ay ugu diyaar garoobaan haddii howlgallo degdega looga baahdo gudaha badda. taliyaha ciidamada ilaalada xeebaha booliska ee jamhuuriyadda Soomaaliya gaashaanle dhexe Bashiir Cabdiqaasin oo hogaaminaya ciidankii booliska ee Soomaalida ee tababarkaasi ka qayb qaadanayay ayaa waxa uu kulan la qaatay safiirka Soomaaliya ee dalkani jamhuuriyadda Djibouti iyagoo oo soo booqday safaaradda Soomaaliya. kadib safiirka Soomaaliya oo goobtaasi hadal ka jeediyay ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliya ay xilligan u baahan tahay ciidamo awood leh oo dhinaca badda ah si looga hortago habacsanaan walba oo ka jirta dhinaca badaha. maanta aad ugu faraxsanahay in booliiskii Soomaaliyeed oo maanta muxuu ahaa sidaa u labisan oo isugu jira muxuu ahaa rag iyo gabdho isugu jira oo maanta tababar ku qaatay wadankan Djibouti magaalada Djibouti tababarkaas oo ah ilaalinta xeebaha waan aad iyo aad ugu baahannahay sababtoo ah Soomaaliya waxa weeye waa dalka ugu xeeb dheer Afrika muddo badanna muxuu ahaa aad u dayacnayd waxaan rajaynayaa maanta inaad qayb weyn ka qaadan doontaan ilaalinta xeebaha Soomaaliyeed dhan kasta ha noqoto dhanka dambiyada muxuu ahaa lagu galo xeebaha ha noqoto ay ka mid tahay dhinaca trafficking dadka laga dhoofiyo ama ha noqdo waxyaabaha mukhadaraadka laga dhoofiyo amaba ha noqdo xitaa dadka muxuu ahaa ka kalluumaysanaya xeebaheena waxaan rajaynayaa maanta inay dowladnimadii Soomaaliyeed meel weyn ka soo noqonayso. taliska ilaalada xeebaha booliska Soomaaliyeed ayaa tababarkani loo soo gabagabeeyay waxa uu noqonayaa mid door muhiim ah ka qaata howlgallada ka soconaya gudaha badda Soomaaliya iyagoo ciidamadaasina iminka bilaabay in ay wax weyn ka bedelaan arrimaha amniga ee badaha Soomaaliya inkastoo aanay hayn awoodihii loo baahnaa haddana waxay ku jiraan dadaal aad u xoog badan. Mikael Cabdirashiid Bare, Radio Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Djibouti. shirkadda korontada ee Beko ayaa guddiga qaran ee gurmadka ku wareejisay deeq lacageed ugu talagaleen fatahaadaha webiga dadka ay saameeyeen. wariyeena Tarsan ayaa Maxamed Muuse Tarsan ayaa faafahinta inoo haya. lacagtan oo dhan $40,000 ayay shirkadda korontada Beko kaga qayb gashay gurmadka loo sameynayo dadka ay saameeyeen fatahaadihii magaalada Beledweyne si ay qayb uga noqdaan samafalka arrimaha bini'aadanimo ee loogu gargaarayo fatahaadihii ay sameeyeen webiyada Jubbe iyo Shabeelle. maareeyaha shirkadda korontada Beko Maxamed Cali Kaariye oo guddiga gurmadka fatahaadaha deeq lacageed ku wareejiyay ayaa sheegay inay lacagtan ugu tala galeen inay ku caawiyaan walaalahooda sida daran ay u waxyeeleeyeen fatahaaduhu ee reer Beledweyne. aan ugu tala galnay dadkii ku dhibaatoobay fatahaadaha aan shirkadda korontada ee Beko ay ku deeqayso inaan ku wareejino guddiga masiibooyinka fatahaadaha ee isugu jira culimada iyo isugu jira ganacsatada. saas la ajligeed shirkadda Beko waxay ku deeqaysaa lacag deeq ah oo ay ugu tala gashay kuna wareejin doonto culimada. gudoomiyaha guddiga culimada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo deeqda lacageed ka gudoomay shirkadda korontada Beko ayaa ka mahad celiyay waxaana uu ganacsatada ugu baaqay inay dhaqaale ka qayb qaataan gurmadka loo sameynayo fatahaadaha ay sameeyeen Jubbe iyo Shabeelle. waxaan ka cadeynaynaa meeshan in shirkadda Beko aan kala wareegnay jeeg ay ku qoran tahay lacag tabarucaad ah oo ah $40,000. taasaan cadeynaynaa intaas kadibna waxaa leenahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala sadaqadaas qiimaha badan Allah idinka aqbalo dambigiina Allah ku dhaafo subxaanahu wa tacaala iyo dambi waalidkiinba. gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga Soomaaliyeed Cabdiraxmaan Gaambi ayaa sheegay in aan la dhayalsan karin xaaladda ay ku sugan yihiin dadka fatahaaduhu ay waxyeeleeyeen. ganacsato ahaan iyo culimo ahaan waxaan isku abaabulnay inaan arrintaas isku xirayaal ka noqono. guddigeennan hadda muxuu ahaa meel fadhiyaana la ka soo diray waxaanu soo aadnay shirkadda Beko aan ugu nimid xafiiskeeda wixii aan ugu nimidna waa ka helnay waxay ahayd deeqdaas ay ugu deeqeen. Maxamed Muuse Tarsan, warbaahinta qaranka.
shaqaalaha guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka iyo hantidhowrka guud ee qaranka ayaa maanta ka qayb galay barnaamijka isxilqaan oo dib loogu dhisayo xarumaha danta guud ee dalka. waryaheena cabdisaaq xaaji suleymaan ayaa ka waramaya. shaqaalaha iyo madaxda laba ka mid ah hay-adaha dowladda Soomaaliya ayaa isku mar ku wada kulmay shaqada isxilqaan ee lagu dhisayo xarunta dhexe madxafka qaranka Soomaaliyeed oo ka mid ah meelaha lagu dhisayo barnaamijka taabagala ee isxilqaan dalkaaga ku dhiso. labadan hay-adood oo kala ahaa guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha Soomaaliya iyo xafiiska hantidhowraha guud ee qaranka ayaa labaduba si weyn uga soo qayb galeen dhismaha sida joogtada uga soconaya madxafka qaranka oo laga soo qabtay shaqooyin adag. bulshada Soomaaliyeed way garteen wayna isku xilqaameen in dalkooda iyo dadkooda ay mataqaanaa ay sheegeen ay dhistaan insha Allah taala waxaan rajaynayaa hay'adaha dhiman inay ka qayb qaataan. waxaan ma aha wax qof gaar ah loogu danaynayo waa wadankaagii oo mas'uuliyad ka saaran. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sida mutadawacnimada leh aan xooggeega ugu deeqayno dalkayga inaanu ku dhisano. ma aha mid cid lagu khasbayso, ma aha mid cid lacag lagu siinayso, ma aha mid cid kale ay maartay dana kale ay nagu dirayso. waa annaga isxilqaanay, annaga xooggeega dalkayga ugu shaqaynayna wixii aanu qaban karno tabartayada ah si mutadawacnimo ah. cabdirasaaq xaaji saleebaan, warbaahinta qaranka, magaalada muqdisho. magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud ayaa waxaa ka soconaya olole lagu dhisayo golaha deegaanka ee magaaladaas. waryaheena cabdikariim bulxan ayaa warkan inoo soo diray. si loo dadejiyo dhismaha golo deegaan oo yeelata degmada caabudwaaq ayaa maanta waxaa la daafuray munaasabad lagu soo xareynayay qaar ka mid ah ergada ay soo gudbiyeen beelaha degmada caabudwaaq, kuwaasi oo noqon doona kuwa soo doorta xildhibaanada golaha deegaanka degmada caabudwaaq si loogu gudbo dhismaha maamul degmo. waxaana munaasabadan maanta lagu soo xareynayay qaar ka mid ah ergada goobjoog u ahaa wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka galmudug iyo mas-uuliyiin ka socotay qaybaha kala duwan ee bulshada. ugu horreyn wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiinta ee dowlad goboleedka galmudug mudane duraan axmed samatar ayaa waxa uu daafuray munaasabadan. waxaan rabaa marka wixii joogo ergada waa joogaan, wixii naga maqan oo aan badnayn hadda nambarka ii muuqda ma yara. odayaasha nagala shaqaynahaya ergada inta naga maqan inaannu haddii alla idmo maalin ama laba kaleeto ugu darno in aynu iska soo gebagabayna arrintan, in aynun wiigagan soo socda aynu noqonno maamul golo degaan oo loo dhan yahay oo magaranaysaa la wada dhistay leh oo doorasho ku yimid. waxaan qabaa qof naga mida oo hoolkan ku jira oo arrintaas diidan inaysan jirin. sidoo kale wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha sheekh ibraahim sheekh xasan guure iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga wasiir mahad ayaa waxay dhankooda ka hadleen sida ay muhiim u tahay xilligan in la dadejiyo qorshahan. waxaa sharaf weyn maanta deegaanka u ah in shacabku isugu yimid maantaytu si u doorto kawsalkii degmadan xukumi lahaa, awooddiina ay gashay gacanta shacabka. maanta kabacdina caabudwaaq aan laga samayn doonin guddoomiye nominayd ah oo dowlad dhexe iyo mid labadaba idiin soo magacowday. ergadiinnan waxaa la iskugu kinkeenay inaad dadka u soo xushaan, dadka indhaha u noqon lahaa inaad u soo xushaan baa la rabaa. qof aqoon leh oo tayaysan sida aad ku soo saari lahaydeen baa la iskugu kinkeenay. waxgaradkii ka soo qayb galay munaasabadan lagu soo xareynayay ergada ka mid noqonaysa kuwa soo doorta xubnaha xildhibaanada golaha deegaan ee yeelanaysa degmada caabudwaaq ayaa goobtan ka hadlay. waa soo dhoweynaynaa reer caabudwaaq haddaan nahay inaan horumar gaarnaan rabnaa, inaan wax dhisannaan rabnaa, dadka inaan raacnaan rabnaa. qoys gaara ma laha, waa soo dhoweynaynaa haddii aad nahayo annagoo ku hadlayna afka odayaasha deegaanka. anaga hadda musharax ma ahi, xilna ma doonayo, xubinna ma ahi, laakiin mataqaan waxaa ka faa'iidaya konsalka ganacsadaan ahaa intaasoo mashaariican dhisaya haddii konsal la helo. arrinta golaha deegaanka ee la dhisayo ee degmada caabudwaaq laga dhisayo waa soo dhowaynaynaa. cabdikariin axmed bulxan, raadiyaha iyo tv-ga qaranka. waxaa intaa inoogu dhammaaday warkii caalamku aad kala socoteen tv-ga qaranka soomaalida xaruntiisa magaalada muqdisho. aniga cumar xasan cali oo warka idiin soo jeedinaya dhammaan saaxiibadii warkaygala qayb galay watan iyo kulanti dambe nabadgelyo.